إيمانك شيء قرا لقو قبو باين الرحمن كقول كيف ما صور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قورسا وليجية قانقار هدي آتيهين قيرا لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسك إلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسير كوال لقو قيافر قلوبتينا قياما حقي سادوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد وحويان سورة البقرة بالوجيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إلهي با وحوري ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. إلهي با قرنيا إريا معناها وجهه ذلك الكتاب كتاب كان إساقاه أينو هينو لا ريب فيه شك كمجره إنه حق يهي إنه إلهي حق سكي مدبا هدى للمتقين تدك ألا الربيعي هنون بويه سيدا صار رب سبحانه وتعالى وكب العابة ألف لام ميم معنى يالدور علماء الصارين معناها سوى قد بيار إنه حوية إن لقد لقاون أما يهي قرآن كقيبة متشابهة معنى هذا إلهي وقرنيا وما يعلم تأويله إلا الله وحيابه تاغن يهينا وحكمنا إنه موجينيو قرآن كان إنه يهي معجز معنيه waxa weeye mid daabad ku ah oo dadku aanay la iman karin oo ay keeni karin kitaabkan idin hor yaalla ee diidantiin waliba carabti waa mid ka kooban erayadii ama luqadii aad taqaaneen haddana xarfaha macnahooda ma garanaysaan arrintaas waxay tusinaysaa inuu mucjis yahay bidaan la keeni karayno bani aadam aanu keeni karayno weey waxyaabaha si muujinaya waxa kamid ah bay leeyihiin culimadu sida badan xarfahaas waa sida qaalibka ah markay suurada u soo horeeyaan quraanku kolkiiba ilaahay ka warama sida halkan badalika alkitabu la rayba fihi ilaahay wili kitaabkan isaga waa kan aynu hayno kitaab bimaana mid maktuuba weey oo waa qoran yahay halku ku qoran yahay lawxul mahfuud ku qoran yahay oo wuxuu ku qoran yahay xaashiyaha iyo kutubta ay hayaan malaa'ikta ilaahay oo wuxuu ku qoran yahay kitaabkan aynu hayno saddex meeloodba waa ku qoran yahay isagoo isu markhaati furayo aan iska hor jeedin dalika alkitaabu laa rayba fiih kitaabka isaga ahi dalika waa eray lagu tilmaamo waxa fog hadda kitaabkuna wuu hor yaala macnaheedu ma aha inuu meel fog yaalo laakiin waa in martabadiisu sareyso quraanka darajadiisa ayaa sareyso ilaahay baa waxa uu tilmaamayaa subhanahu wa ta'ala liyudhhirahu ala ad-din kulli diimaha kala dhan buu ilaahay doonay inuu ka sareysiyo inaguna waa inaynu ka sareysiinaa oo inuu kitaabka weyneeyay sida ilaahay soo dajiyay uu u weyneeyay nabiyuna muhammad والصحابه رضوان الله عليهم يقولون اي وينينين كتاب كان isaga faa'iidooyinkiisa baa ilaahay uu noo sheegay wuxuu tilmaamay kitaabku dad badan haba dureen qaar badan haba ceebeeyeen ha caayeen shaki kuma jiro la rayba fiih marka ku xisaabtan ma laha dad badan oo ka shakiyay ama yiri bani aadam baa samaystay shakigoodan ku xisaabtan lahayn sida daraadeed baa ilaahay uu shakiba ma laha inuu xaq yahay kitaabka faa'iidooyinkiisa waxa weeye hudan lil muttaqiin dadka alla rumeeyay ilaahay ka cabsanaya hanuun buu yahay hanuun ayuu yahay marka kitaabkani waa kitaabul hidaayah kitaab saynisna maaha kitaab su'aal oo dadka lagu dawarsadana maaha ama geerida un lagu akhriyo kitaab la iska dhundhunkado oo halka la dhigana maaha kitaabku faa'iidooyin badan uu leeyahay intaaba waa leeyahay caafimaadkii iyo in horeen u soo sheegnay laakiin ta laga hadlaya waxa weey ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu nolosha bani aadamka saxo إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تسوي لها يقول تلاقي لنا كستوى دقن كهانون كبدن بكوها جيا وحين سؤال كيني سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هل كان هدى للمتقين هل كذبنا أولئك على هدى من ربهم والله بدن بيتش كوبان إسكهر كذا أي أري هانونك صدح شارك صنعه marka hidaayadaas waa hidaayatul irshaad
وهداية التوفيق لبضبا هداية الإرشاد وحويا كتاب كاتوسينا وهنونك معناها وهنون قفكي لغو هنونين لا توسينا جدك كتاب كو توسينا رسول كنا توسينا قفكي خير ودانا توسينا هداية وافجنتنا إلهي واسكاله dad badan oo lagu badalay in la hanuuno ayaan haddana hanuunayn marka taasi waxa weeye waafajinteeda Ilaahay baa iska leh inuu kitaab hanuun yahay isaga miisaanka saaray dadkana jeclaysiyo ku abaabulay hanuunka sidaa daraadeed 305 meelood ayaa quraanka dhexdiisa ereyga lafdul huda uu ku soo arooray ana farabadnaanta taas muujinaysa taasoo markaa 28 waji u taagan lafdul huda isagoo 28 macno leh ayuu 305 meelood ku soo arooray quraanka dhexdiisa 62 suuradood marka xigmada loogu talagalay kitaabku inay tahay dadka inuu jiheeyo oo uu hanuuno min dawladooda ilaa qoyskooda ilaa qofkooda ay halka ka arkaysa lafdul huda ama ereyga hanuunku macnayaashu bixiyo dhowr 28 ka waji qaar kamid ah hadaynu ka soo qaadano waxa kamid ah mararka qaar ko thabaat buu noqdaa ereygu sugnaasho ihdina siraat almustaqim ilaahu nagu sugweeyay jidka toos bayaan buu noqdaa mararka qaar hanuun waa hanuun oo macnihiisu yahay bayaan sida halkan oo kale mararka qaar kood ereygani rasuulka buu noqdaa fa imma ya'tiyannakum minni huda haduu rasuulidii yimaadee culimada ku fasireen rasuulka laftiisa daa hanuun buu la socdaa marka hanuun baaba loo bixiyayba mararka qaar kood sunnada iyo dariiqa saxda ah ayaa looga jeedaa hanuunka ulaa'ika alladhiina hada Allah fabihudahum iqtadi sunnadooda nabiyada hore jidkii wanaagsanaaye mareen nabi maxamed oo kaga dayo hanuunku quraanka dhexdiisa mararka qaar kood buu noqdaa islaax iyo hagaajin ilaa hanuunku baa wax lagu hagaajiyaa wax kale oo hagaagaya ma jiro hanuun alle la'aanti dalika liya'lama anni lam akhun wa anna Allah la yahdi kayd al-khaa'inin dadka hadiya jeer khaa'iniinta ilaahay arrimahooda oo dhan wuu kharibaa ma hagaajiyo yeer buu noqdaa mararka qaar kood iyo baaq walikulli qawmin haad ummad waliba waxay leedahay mid daaciya oo u yeerayo oo rasuul ah iimaan buu noqdaa ereygan quraanka dhexdiisa mararka qaar innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan hanu muuminiin baa ahaa qoliyaha asxaabul kahf dhalinyaro ah anna huda baan kordhiyay ilaahay al-huda iimaan baan u kordhiyay mararka qaar kood wuxuu noqdaa ilhaam qofka ilaahay uu ku jiheeyo oo uu ku hago ama xayawaankaba wixii dantiisa قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى هاي الشيء والبين توابوري حتى حيوانك أيا وحو كهجي كو إلهابي وكو أبوري وحي دنتيسا سدو أرساقات دودونا يسدو يسد دفاعي با جيريدا إسلامي ما لقول انتو أيا قرآن كو استعمالا مرارك قاركود إرأيغان هانونك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كدبنا السلاح كل انت مرارك قاركود توحيد أيو النغضاء قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا إن نتبع الهدى هدان التوحيد كالراعنا قالوا وحي إليهين لمن كي عربية النبي محمد وكسور نحبحي عليه الصلاة والسلام وحي إلهدين هانونك وحي نودي ديا هدانو هانونك الراعنا دوابنا لها القفية ضدبانا كالقوصنا وانا لقى قوريسانيا قول درهدا يفلين ماذا أي كمتها إيمان لأنتو أي لاذا قرآنكم مررك قار كود بإريقان هانون كاو استعمال التوراة ولقد آتينا موسى الهدى توراة بانسيبا إلهو استيدي الله باتنك وجي إريقان القرآن كدحدي سوي ماذا أما كسارارا كويالها سا كميدا تصالون بين وجهنا إن إري معنى كلياله ونقون معنيال بدن يالان كذا قرآن كدحديس لكن مرك الله يجو وحسوا صاب يشوب ما ياون وناج إلى هاي الضامهن ولدونه مركو كتبنا وصادة شيء رسولنا وصادرين هدى للمتقين وحي سويدين له أو قرآن كريم كأ
miyaanu hanuunun ahayn dadkoo dhan maxaa ilaahay ugu gooni yeelay kuwa taqwada lahu waxa loogu gooni yeelaya halkan dee dadka hanuunka ka faa'iideysta kitaabkani leeyahay waa la yaqaanka ilaahay ka cabsada kuwa kale maba arkaanba kuwa kale way aftaagayaanoo way indhalaayi oo maba muuqanayaba hanuunka kitaabka uu leeyahay saa daraadeed baa dee ciddii hanuunkiisa ka faa'iideysatuunbaa waxay noqdeen kuwii loogu talagalay dadka haddaba sifooyin bay leeyihiin sifooyin shana ama aan idhaahnee tilmaamo ay caan ku yihiin dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsada tilmaamahooda la doonayo inaynu yeelanno ee aynu ku dhaqanno ayaa ilaahay halkan inoo caddaynaya fayaquulu rabbuna ilaahay waxau ihi aladiina kuwii weeye yu'minuuna bilgayb waxa maqan bay rumeeyaan wayuqiimuuna asalaa salaadana way ogaan ومما رزقناهم ينفقون وحي أنو كأرساقني معناه وحي أنو حوالي أدون سينينا ينفقون وحبي كبحيا والذين يؤمنون وكوا الرمينية الرميي بما أنزل إليك وحي قال لك سودة شيء قرآني حديث بقى وما أنزل من قبلك يكتبتي لسودة شيء هذه هرطاء وبالآخرة هم يوقنون آخرنا كالسوني وين بيكو قوانا كما شكسنا من الديدنا أولئك كواس على هدى من ربهم هنون بي كدل سجيهين إلى هذا حقي ساي كهلان وأولئك كواس كلية هم المفلحون كواس الليدان بركة تلمامها ضدك الله هلاي ضدك ساكو انتفاعي وكفى إذا يستي كتاب كان هنون كلها سيدا إلهي بكم مرخاتك عايش سبحانه وتعالى الدنيا ده وحا لغا سهاي قاتا قول أما قول درو كوا سا قوشة كلا تغي الدنيا ده الدون كان كوا قوشة كلا دعاء قوليستي وكوا تلمامها له وعقيدة دي وناك سنين وعمل كيف فعنا وأخلاق دي يدقن كي وحوي يديق سنما دي وناكي قفك الله قبه هنا انتو إفكن شوقا أردن بآياتك وابسنا غيبك رميان غيبك dadku way kala duwan yihiin cidda qaybka rumaysana waa cid aragti dheer cidda qaybka aan rumayna waa qof aragti gaaban indheer garad iyo indhow garad Soomaad maqal adduunka imika si kala loo fasiro indheer garadku waa dadka qaybka rumeeya waxaanay arkayn bay ku qanceenay rumeeyay markaas ay u diyaar garoobeen oo amal fala kaasa indheer garad kaasana aqoon-yahana kii kalena waa indhow garad weeye mar hadduu maraya itaabsi waxa la wuxuu muuqdaaba ma jiro qaybku waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu naga qarsoon waa jannadii waxa ku sugan aynu jibaysana waa naaraha iyo waxa ku sugan aynu ka baqayno waa xisaabta waa suurta waa malaa'igta inaga qarsoon waa jimanka waxa la waxa soo dhan waa qaybki shay kasta oo quraanka iyo xadiidku ay sheegaan oo adduuniya aakhira mid kasta ha joogay aynaan arkaynin inuu haddana ku qanacnay oo aynu ku hawl galay waxa way qaybkaas u soo galaya amaan wi alladina yu'minuna bil ghayb wasifada ugu horeysay muuminiintu leeyin marka haddaad aragtid dadka oo ka shakisan qaybka quraanku sheegay qaybkii hore qaybka soo socda qaybka aakhiro dad ka shakisan haddaad aragto oo wiswisan oo cagataalaynaya iimaanku qoomay iimaankiisa qooman casrigan aynu joogno dad badan baa ka hadlo yiraahdo kaasi ma jiro jinku ma jiro malaa'igtu ma jiro janna ma jirto naari ma jirto iimaanka qooman u bisheegaysa ilaan ilaahay baa ku amaaray muuminiinta inay qaybka rumeeyaan wa yuqiimuna as-salaah salaadana way ogaan diin la'aan way salaad la'aan dadku inay diintu aroosan tahay oo diinta ay u heeleen inay jecel yihiin oo ilaahay ku xidhay maxaa ka marxaatiya inay salaadu u aroosantahay oo ay u oogan tahay iqaamadu waxa weeye yuqiimuna as-salaah salaada xaqeedii mariyaan ma kala hadha cibaadada iyo way noocyo badan tahay xiriirka alle markay saa u wanaajiyeen xiriirka adoomahana way wanaajiyaan wa mimma razaqnaahum yunfiquun mujtamac yatakaamal ba'duhu ba'dan wadada isdhamaystiraya oo isu gurmanaya oo iscaawinaya oo ku qanacsan
walaalkiisa ag jooga haddaanu wax noqonin inaanu isaguna waxba noqonaynin takaaful ijtimaaciya leeyna way isku xidhayeen oo isxil qaadaan marka wixii aan siiyay wax ka bixiyaan baa ilaahay sakadii bay noqonaysaa oo nafaqadii waajib masaariiftii waajibka ahayd bay noqonaysaa oo sadaqadii sunnaha ahayd bay noqonaysaa deeqdu ama waxa la bixiyaa marna waa waajib marna waa sunne labada qayboodba way noqonaysaa dhinac kolkaad ka eegto aayaddu waxay nagu dhiiri gelinaysaa waxaynu isugu adkayno waxaynu hayno inaanu jirinba laannahu laba arrimood baa taa inaga caawinayo marka hore dee waxaan ilaahay baa ina siiyey wamima razaqnaahum annagaa siinay baa ilaahay u leeyay adigu xoog iyo xirfadaad leedahay kumaad keenina waa cadiyo ilaahay uu ku siiye waxaad haysee xoola ah ee cilmiya ee cudud iyo awooda inta waxbaa laga bixiyaa marka labaad waxaa kaa saacidaya mintu ereygu waa tabciidiya wamima razaqnaahum waa wax yar bal waxaad u fiirsataa sakada inta laynagu waajibiyey boqolkiiba 2 badh 790 iyo badhna waxa lagu hayso si kale haddii loo dhigo xoolahaagoo 40 meelood loo qaybiyey ayaa lagu leeyahay meelna bix 39 hayso marka hunguri weynaanteena waxaynu sii eegaynaa midka 40aad ama 2 badhka ayaynu sii eegaynaa inta kale ma sii eegayna laakiin waxaan ahayd markaad isqancinayso shaydaanku wada wallahi dollarkiiyo dahabkaad bixisay wuu badan yahay geelaad bixisay wuu badan yahay waxyaabaad ku qancinaysa waxa kamid ah inaad tiraahdo inta ay hadhaaba ka daranba dad adigu inta ay tustay inta ay hadhay ayaa ka badanba inaad tiraahdaa muhiima wamima razaqnaahum yunfiquun marka bakhaylnimada dhabtahay waxa weeye wixii ilaahay uu ku siiyay waajibkii inaad ka bixin weyn halkaa waxaynu ku haynaa 3 tilmaamood oo ay leeyihiin awliyada ilaahay way dhacdaa marar badan dad kamida bulshada islaamka ama ummadeenaba oo sakada ku bakhayla haddaanu qofku saka bixinin oo salaad bixin sakadii bixin oo salaad tukanaynin xagu ku faylaya xagii lagu ogyahay xoolihiisu way iscunayaan oo way baaba'ayaan oo way baraka beelayaan goor dambuun baa isagoo khasaaray oo madaxa xoqanaya la arkaya laakiin meel laga raacay muu garan marka sakada waa in maalka laga safeeyo haddii kale way baabiinaysa tilmaanta afraad ay leeyihiin awliyada ilaahay la doonaya inaynu sidooda noqonnaa waxa weeye waladiina yu'minuuna bimaa unzila ilayk wamaa unzila min qablik waxay rumaynayaan wixii lagugu soo dejiyey nebi maxamed iyo kutubtii la soo dejiyey adiga hortaa iimaankani waa iimaanka qarada leh ee qiimaha badan ee quruxda badan ee laga doonayo qofka muuminka ah suuradda aakhirkeedana ilaahay wuxuu ku ammaanay awliyadiisu ku ammaanay iyo dadka iimaankooda wanaagsan yahay aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun kulluna aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi intaasaa la israacinaya waa iimaan dhammaystiran oo qabyaalad iyo eextoona aan lahayn ilaahay kutubtiisii oo dhan baynu wada rumaynay rusushiisiina waynu wada rumaynay dadka xataa diimaha kale leh laguma hayataa mid waliba wuxuu leeyahay diin gaaraan rumaysnahay nebi gaarana waan rumaysnahay intaa wixii ka soo hadhayna ma aqoonsanin mana ictiraafsanin mana rumaynayo laakiin diimaha samaawiga oo dhan qofka muuminka waa rumaysan yahay kutubtii buu rumaysan yahay rusushii ilaahay buu rumaysan yahay sida xaq uu sheegayna waa rumaysanna bimaa unzila ilayk waxa nebi maxamed lagu soo dejiyey waxaa ka mid ah qur-aankan aynu hayno waxaa ka mid ah axaadiistiisa xikmadda ah uu kasii dardaarmayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waxa laga yaabaa aakhiru zamaanka mid dhirgay oo iska dibiray oo lugta taagay sariirtiisa iska fuushan inuu dafiro yidhaahdo war anagu qur-aankun baanu qaadanaynaa waxaa kale iyo xadiisyada aad sheegaysaan ma ogin haddaynu maraynaa aynu arkaynaa hadda waxaa jira dad badan oo muslimna sheeganaya xadiidkii nebi maxamedna diidan calayhi salaatu wasalaam waa nasiib daro hadduu qofku daliilkaa qadciga iyo nusuustaa saxiixee sariixaa diido waa ku gaaloobaya ila ilaahay baa shaabadeeyey ilaahay baa ogolaaday ilaahay baa in amray inayn raacno wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu rabitaankiisa kama hadle wuxuu sheego o dham waa waxyi weeye isaguna wuxuu leeyahy waxaa la isiiyey alqur'aan wamilahu maca qur'aankana waa la isiiyey waxyi kaloo lamidana waa la isiiyey waa xadiidka saxiixa nebiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam haddii xadiidka la diido dee diintii baa la diiday salaada ilaahay waa kaasoo aqiimu salaata buu laakiin waktigeedu waa goorma waa in mise ragcadood
salaadu maxay ku kala duwan yihiin yaa ka warramay taa dee xadiidka nabiga cadcadeeye calayhi salaatu wasalaam qur-aanku waxbuu si mujmala ama si guud buu in badan u sheega laakiin axaadiidtuna way iftiiminaysa marka diinta ka tagun bay la mid tahay dadka diida xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wamaa unzila min qablik kutubta inaga horreysay intoodii inuu ilaahay soo dejiyo nebiyadaa ku soo dejiyo waa rumaysanna intii xaqahe ka taalana waa rumaysanna laakiin dee wixii la bedelay iyo wixii baatil ku jira waa diidana waynu haya taa ma aqbalayna waa diidana waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam towraad markii ay yuhuud u keeneen intuu barkimo uu ku fadhiyey nebigu ka kacay isagoo ixtiraamaya kitaabka ayuu dul saaray markaa wuxuu ihi towraaday waa ku rumaysna kitaabkii towraad haddaad ilaahay ku soo dejiyeyna waan rumaysna adigana waan ku rumaysna marka si guud baa loo rumaynaya laakiin wixii baadilahe ku jira waa ka beri noqonayna وبالآخرة هم يوقنون آخرة غيب كاهرنا ويسوق ليس آخرة إيضا حق هرا سوق ليس هدنا إلهي وكسو عليا آخرة رميسين آخرة رميسين آخرة تفسير المريس تدك ملاحدة ده عصر جنا ينشوفونه مركل إلى ورتدك حاجة كيما دين وحي كيما دين بين أرحام تدفع وأرض تبلع وربهم رئيسهم dee riximka hooyadun baa soo tuuray bay yidhaah dhulkuna wuu liqayaa waa la waaya ilaaha dadkuna waa kolba kii madaxdooda warkii shuuciyadda iyo malaaxidadu intaasuu ku ururay ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun hanuun bay kuwaasi ku sugan yihin qofka hanuun helay ha ugu mahadnaqa ilaahay buu ka helay min rabbihi iskama heli kartid uun hanuunka laakiin waxay iyaduna hanuun nicmo kala waafajintu ilaahay ku waafajiya min rabbi waxa aayadda laga fahmayaa lafdu calaa ay faa'iideynaysaa dee qofku marna hanuunka dhinac buu ka taagan yahay wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfi dhinac buu ka taagan yahay marna tamakana calayhi wuu ku xasilay oo wuu ku degay calaa macnahaasay tamakun bay muujinaysa sida gaariga loo fuulo sida kursigaa loogu fadhiyo nimankaasi hanuunkii la ordayay ilaa aakhiro gaadhsiinaya bay ku sugan yihin shantaasi fu baynu ku dadaalayaan si aynu hanuunkaa u helno liibaantaana u helno ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u ballan qaaday wallahu subxaana wa tacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان